السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه برنامجينا عافيمادك soo dhawaada waxaynu maanta bal dul istaagayna isku dayayna inaynu ka hadalno waxa soo socota Ramadaan runtii waxana laga yaabaa in aynu aad u badsano timirta waxa jira dad markaa macaan leh soonka iyo Ramadaantana sidii Ilaahay sheegay hadii awood u leeyihiin sooma laakiin ay dib ku hayso controlka macaanka sida gaar ahaan cuntooyinka la cunayo waxa hadda baan leenahay bal timirta oo shayga ugu badan ee xilliga Ramadaanta la cuno ka tirsan ama laguna suxuurto laguna waliba afurkana u badan qofka macaanka li ma cuni kara hadduu cuno see dhibintii lagay u geysanaysa intee ku haboon isaga aanu ka badsan karin ma la cuni karaayo ma ku darsan karaa cuntada afurka iyo suxuurtaba mise in uu gooni cuno oo waliba number macaan ah oo cuno ayaa ku haboon waxaynu leenahay horta aynu ogaano intaynaan ka jawaabin su'aalaha badan waxaynu ogaanaynaa sonkorta ku jirta intee leegtay ama maxay u dhigantaa si qofku u fahmo waxaynu leenahay markii la baaray wax la yiraahdo juliska ama inta energy sonkor ku jirta laba sonkorood ba horta u badan glucose iyo fructose ayaa ugu badan muxuu ahaa bahashaas timirta waxaana ay markay saynisyahaniintu baareen waxay ogaadeen 3 ilaa 4 midh waxa ku jirta malqacada sonkorta ayaynu ku waliba ta dhexe caadiga ah ee shaaha ugu darsano tan tayarna maaha taweyna maaha ta dhexe caadiga ah cuntada lagu cuno ayaa sonkor inta leeg iyo waxa isku dhigma sonkorta ku jirta 4 midh muxuu ahaa sonkorta muxuu ahaa daytiska aduu 3 ilaa 4 noocyada kale daytiska oo kala duwan yihiin wayna kala sonkor badan yihiin laakiin average ayaa laga sheekeynaya waxyaalaha kale haddaba qaabka ay u saameeyso waxa weeyaan qofka macaanka qaba wuxuu isagu leeyahay awoodda qofka bini aadanka ee kale aan macaanka lahayn uu ku controlayo sonkorta markii jirkiisa soo gasho ama insulinta ha noqoto ama qaabka jirkiisa uu qaadanayo ay u aqbalayaan cells kuba ha noqoto qalba ku qababa ama ha qabo taabona mitaay type 2 waxaan leenahay markaa qofka horta macaanka qaba xilliga Ramadaanta uu soomi karaa isaga oo Ramadaanta ka hor isbaaraya ogaanaya heerka ay sonkortiisu marayso inuu controlayo in kare wax loo yaqaano muxuu ahaa inta dhiiggiisu dhibaato dhiiggiisa red blood cellskiisa iyo dhibta ay u geysatay sonkortu waxyaalo badan baa inuu iska yar baaro ogaado kalihiisa iyo sida yihiin markuu waxyaalo badan ogaado inuu qofkaasi awoodii leeyahay uu ku gali lahaa soonka gaar ahaan dadka ku nool wadanada saacadaha badan la soomayo waxa u haboon inuu qofku isa sii baaro ogaado inuu awoodda leeyahay iyo in kale okay ka soo qad qofkii uu soomay wuxuuna leeyahay macaan waxyaalaha lagu talinayo waxa kamid ah aadka muhiimka in uuna 3 midh ka badsanin marka uu afurayo waliba 3 midh iyo koob ah uu cuno afurka dadna uu hadduu salaad tukanayay hadduu hawliis qabsado markuu soo noqdo kadibna uu dawadii kale cuntadii kale uu cunayay iyadana si ayar cuno waayo waxay leedahay sonkortu si dhaqsaay u soo galaysaa marka uu timirta cuno si dhaqsaay jirkii u soo galaysaa isla markaaba cirka ayay marinaysaa wax la yiraahdo blood sugar spikes ay sameynaysaa taasina qofku waxay ku sameynaysaa dhibaato aad iyo aad weyn waliba markuu qofku muddo dheer u gaajoonayay uu saasoo kala soomana laakiin guud ahaan marka la eegayo iyagu maaha cuntooyinka ugu xun ama ugu khatarsan ee qofka diabetic qofku uu cuni karaa laakiin kimiya yar oo ku haboon isaga ay cunay waxyaalaha faa'iido aad badan bay leedahay isaga qofka u leedahay iyo dadka oo dhanba waxay leedahay fiberka oo caloosha socodsiya ama jilciya waxay leedahay potassium iyo magnesium ay ku tahay qani oo iyadana ka buuxa iyo antioxidants oo iyaduna waxyaalaha iyadana muhiimka ah waxaan leenahay haddaba qofka diabetiska waxyaalaha u safe ka ah oo muhiimka muxuu yahay ko waxaan leenahay waqtiga uu cunayo daytiskiisu ama timirta waa inuu joogteeyo waxaan leenahay waa inuu ku daraa marka uu iyada cuno kadib yar kadib waa inuu ku daraa subag iyo hilib anaa inuu hilib iyo protein iyo inuu cuno subagna oo yarna waa inuu ku daraa
waxa kale oo muhiim ah inuu iskaga ka fogaado waxa la yidhaahdo sonkorta aadka u macaan ee aan fiberka lahayn, inuu la cuno muxuu ahaa timirta. waa inuu isla marka uu timirta cuno in yar kadibna waa inuu dhiiggiisa jeegareeyo, uu ogaado ma tahay mid ku habboon waqtigii dawada qaadan lahayd haddii ay aad iyo aad u sarreyso iyo haddii kalaba. waxaa kaloo iyadna muhiima inuu dawadiisa si fiican u qaato xilliga suxuurta, inuuna ilaawin xilliga afurkana marka uu afuro iyadana sidii loo sheegay haddii ka hor uu cunayay iyo hadduu kadib cunayayba inuu iyadana u sameeyo. sida dawooyinka masalan caloololka oo kale oo cuntada ka hor la cuno, iyo dawooyinka macaanka oo kadib la cuno, labadaba waa inuu isku combine gareeyo. haddii uu isticmaalayay muxuu ahaa irbadii la iskugu midayeyna waa inuu iyagana ka faa'iidaystaa. marka waxyaalaha haddaba iyadana muhiimka ah ee kolley u baahan waqti la siiyo waxaa ka mid ah datiska freshka ah iyo kuwa kale ee muddada yaalay, kuweeba qofka u fiican. waxyaalaha aynu ogaanayno waxaa ka mid ah waxaynu leenahay fresh datisku iyaga ayaa ka sonkor yar kuwa muddada yaalay, laakiin haddana mid 100% lagugu dhiiran gelin kara maaha inaad badan ka cunto. waxaa muhiim ah inaad xadido 3 mid ilaa 4 mid aanad ka badsanin cuntada borotiinka iyo subagana aad cunto, sidaana aad arrinka uga hawlgasho. ilaahay caafimaadka ha inoo dheereeyo. waxaan rajaynayaa inaynu Ramadaan ku wada gaadhno bashbash iyo barwaaqo. khayr baan idin rajaynaya dhammaantiin. haddii aad chance heshaan nagu soo biira, aad iyo aad baad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullah.